waxaan rabaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan saxaafadda madax banaan iyo kuwa wadaniga dhammaan wariyaasha guud inta ku hadasha afka Soomaaliyeed iyo kuwa kalaba waxaan maantay oo taariikhdu tahay 16 bisha 2022 rabaa in aan raali gelin buuxda u soo jeediyo wariyaasha Soomaaliyeed maantay sida qaladka ah ay ugu xadgudbeen ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliyeed kuwaas oo loo geystay xadgudub ku aadan shaqadooda. waxaan leeyahay guud ahaan saxaafadda ummadda Soomaaliyeed waxaan ka raali gelinayaa wixii goobtaas ka dhacay. saraakiishii hogaaminaysay ciidankii falkaas geystay iyo ciidankooda bana taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo aad uga xumaaday arinkaas ayaa wuxuu amray in la soo xiro waana xiran yihiin. taas aniga idin xaqiijinaya taliyaha iyo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir iyo taliya-xigeenadaba waxay aad uga xun yihiin wixii maanta ka dhacay Kaxda. saxaafaduna waa saaxiibka koowaad ee booliiska Soomaaliyeed. waxaan idinka leenahay wixii maanta goobtaas ka dhacay ma ahan wax raali uu ka yahay guud ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda sare ee booliiska ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed taliya-xigeenada iyo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadirba. saxaafaddu waa saaxiibka koowaad ee booliiska Soomaaliyeed waa isha wararka iyo xaqiiqda ay ka helaan bulshada Soomaaliyeed waa kuwa har iyo haween baahiya dhibkana u mara qaxarkana u mara inay xog dhaba ka keenaan goobay wax ka dhacaan. ciidanka booliiska Soomaaliyeedna wuu ku og yahay saxaafadda inay ka shaqeeyaan marxalada adag. marka waxaan idin leenahay wixii dhacay ma ahan wax lagu farxo mana noqon doonto wax la isaga daba haro. saraakiisha hogaaminaysay ciidankaas iyo ciidankii goobta joogayba hadda waxay ku sugan yihiin qaarkood hogaanka baarista dambiyada waxaana la wadaa baaris wixii ka soo kordhana insha Allah saacadaha soo socda in la wadaagi doonaa. laakiin saxaafadda Soomaaliyeed wariyaasha Soomaaliyeed ee maanta gefka loo geystay waxaan leeyahay ka bogsooda mana dhici doonto. ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu balan qaadayaa wixii hadda ka dambeeya saxaafadda iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed inuu xiriirkoodii sidii hore u ahaa si ka wanaagsan u noqdo. goobaha ay u baahan yihiinna tagideeda uu ciidanka booliiska Soomaaliyeed gacan ku siiyo lana geyn doona sida uu amray taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed wixii hadda ka dambeeya goob kasta ay aadayaan in la galbiyo lana geeyo xaqiiqdana ay u soo tabiyaan.